السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan waa shaqtaan waa Aram Production. soo dhawaada daawadayaal. subscribe like iyo kulli commentiga dhankiina waaye. maanta garabkiina waxa fadhiya sida hore nooga barateen boqor Cabdi Cali. boqor waxaan sharafna ah inaan maanta aan ku wareysano mar labaad aruus baqto studio magaalada Muqdisho. sharaf alla waxa ku leenahay soo dhawo boqor. bal maanta maxaa maanta anoo haysaa boqor bal maanta waxaan rabnaa arrimaha bariyahan magaalada Muqdisho ama sida baalki Banaadir State oo dhanba ka socday inaanu ka hadalno. Banaadir State ana ma qado gobolka Banaadir. ها gobolka Banaadir ma state kiis macna gobolka Banaadir waxay wuxuu ahaa geeska waxooga Baraawe xagana cadal halkan Jowhar marka waxa shay wax la yaab noqoto oo aan la yaabano gudiga madaxa banaan ay ku dhawaaqeen ama xitaa ay sheegeen ayaa umadu aad iyo aad maartay waxay tahay shay xitaa qofka dadka aqliga leh uu ka khajiro waxa kamid ah inay yiraahdeen gobolka Banaadir wuxuu yeelanayaa 7 sanatar اوكي سنترada gobolka Banaadir waxa adduunka mucjisaa waxa la waxa jira yaabka iyo Yurdan yaab waxa baa la aboor yaabkina waxa la dudunta u dhiso Yurdan waxa baa la canuuftiisu ku dhisaa oo ma keento biyo iyo waxa mood weyn qoyanta marka waxa yaab nala noqotay oo aan qaadan weynay maadaama aan anigu boqorka beelaha wiye ugaasiyadii iyo boqoradii iyo sulaadiintii iyo dadkii wax garadka indhar garadka wax qaadalayeen gobol inta la raro gobol kale loo soo rarayo gobol dul saaray macna gobol la leeyahay dad male ee dad loo raadso waxaad moodaa gobolka Banaadir inuu san dad lahayn laana waxa la yiri aqalka sare waxa laga soo doonanayaa maamul goboleedka Puntland ninba ka imaanaya galmudugna nina waxa laga soo doonanayaa Cabdwaaq koonfur galbeedna waxa laga soo doonanayaa nin Baydhabo nina waxa laga keenayaa Kismaayo marka waxaan la yaabay ummadan marka degan gobolka Banaadir oo sheeganayso le deegaankeedii leh oo qoryaha keenayso state-kii degan macnaha ma dad aqli dad aan lahayn ma loo arkay oo gudigaan u arkeen oo waxay dad astaahila ma golaha sare oo gobolka Banaadir dad maamulkooda ehel oo hamaan meelay ko ma waxay leeyihiin haddaan Puntland iyo galmudug iyo Hirshabeelle iyo koonfur galbeed haddayse ku jirin macnaha dhismaysmay ka wadan waxa rabta dadka inay warka u cadeeyaan inagu gobolka Banaadir mar hadii la sheego gobolka Banaadir wuxuu iyo state-kiisa gobolka Banaadir oo xamar iyo xamardaye la isku yiraahdo ummad baa degan صح aqooyahan bay leedahay صح culum bay leedahay indhar garad bay leedahay hooyooyin ay leedahay dhaqaatiir bay leedahay wax kasta oo ummadu leedahay qolay leeyahay 18 gobolka Banaadir ay cunaan oo canshuurta gobolka Banaadir ka soo baxda ay xildhibaanadooda cunaan waa garta marka aqligoodu marka wuxuu noqday walow dadkaan ay canshuurtii rabaan dowladnimadii rabaan amniga ay rabeen la yiraahdo la gargaraaco le dadka wax gartama addeeran waxaan ku leenahay ma ogolin qof gobolka laga soo darorto ma aqbalayno dana beelaha wiye ma aqbalayno adiga boqorkaas dhahay ma aqbalayno ma aqbali doono waxaan leeyahay horta sideedaba aqliga waa in dib loogu laabtaa sax hadday ka ahayd baroowo dad la baroowo ma hadday ka ahayd hanjabaadna dad loo hanjaba ma sax hadday ahayd aqli xumo dad lagu taminayana ma dadka kama aqli xumine waxaan rabnaa Soomaaliya inay israacdo Soomaaliya ay mid ahaato sax maamulka Somaliland gobolka Banaadir dadka degano xuquuqna kuma leh codna kuma leh maamulka Puntland dadka gobolka Banaadir degan iyo state-kiisu codna kuma leh xuquuqna kuma leh maamulka Hirshabeelle akwal lamid weey koonfur galbeed taa iska badaa waxay leedahay koonfur galbeed madaxweyne ku xigeenka waxa la hawiye way diideen صح waxay u diideen qaab caadifad ayaga ku jirta weey ana waxaan ogol walaaleyeen inay la deegaanku inuu naga dhaxayo gobolka Shabeellaha hoose 95.5 wax kasta oo yaala magacaan waan boqorka ka hawiye askale Jowhar cid la leh ma jirto cadala cid la leh ma jirto
ilaa baraawo ilaa dhulkay degan yihiin way deegaankoodii hadday ka waayeen marka maamulkii gobolka banaadir oo in lagala tashado oo iyagu ay soo xulaan oo iyagu ay culummo ka noqdaan oo ay xaakim ka noqdaan haddii loo diiday ee la yidhi dad kalaa maamulaya gobolka maxkamaddii dad kalaa maamulaya wax walba oo dhan laysku keenay war ma hadday gaartay in la yidhaa dadkii ma tashan karaan annagu waxaan leenahay dowladda waxaan kaga dacwoonaynaa dadkaas hadalka noocaasa yidhi dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddan uga dacwoonaynaa inaysan mar dambe hadalka noocaas aysan noo celin waa dagaal ay iclaaminayaan waxay iclaaminayaan colaad soomaali oo abad aan harayno dambo 90gii oo kale ay soo waxaan leenahay codka ayaan mar dambe naloo celin eheluma ihin mana qabto gobolka banaadir annagaa degan qofna marti ugama ihin ummaddu annaga marti noo tahay innagaa canshuurteenna la cunaa hal gobol oo kale oo maanta 1 senti uu ka yimaada ma jirto muqdisho baarlamaanka oo dhan waxay joogaan muqdisho nin aadi kara maasha la yidhahdo puntland inta taga mushaar ka qaadanaya ma jiro ka keenaya canshuur ka keenaya nin somaliland ka keenayana ma jiro koonfur galbeed ka keeni maayaan hirshabeelle iyo galmudug ma laga keenayo war maadaama aan ogolaana soomaalinimada iyo canshuurta innagana laka qaadayn waddan lakugu samaynayn oo dowladda aan ku rabnay ma waxay isu beddeshay soomaalida waxaa le wax dad looguma maamaan coontii ciirtaada dhanta caydaada taqan war ma caydeennay ku barteen inay yidhaahdeen hawiye waxba ma galo ma astaahilo gobolka banaadir ma astaahil ma aqbalayno waa astaahilnaa waxaan aad iyo aad cod dheer ugu lehna oon dowladda ka codsan ra'iisul wasaare khaasatan ra'iisul wasaarahan ka codsanaynaa kelmadda inaysan noo celin guddiga madax bannaan yaa dhisay markii hore yaa ka dambeeyey jin baa dhisay ma naqan wax dhisay jin iyo reer galbeedaa dhisay waa dowladda dhan waa ka madax bannaan guddiga madax bannaanaa la yidhaha ummadda inay caayaan oo madax bannaan yihin waxaan leenaha marka hanala ka daayo waa u sheegana cod dheeraan ku leenahay annagu waxaan samayn karnaa in aan diidnaba marka sida la ajrigan waxaan leenahay dowladda soomaaliya arrintan ha dhex gasho gobolka banaadirna ha loo daayo dadka iskale ha loo daayo dadka iskale gobolka banaadir lama wada leh dadka iskale ha loo daayo hawiyaale hiraabbaale waxaa iskale shanta ilmaha hiraaba budullood hiraab hirdiid hiraab iyo madarkicis hiraab iyo martiila hiraabaa iskale awoodda ugu badan kuwa awood ma yeelayno aqoonna kama badna caqlina yaanala tusin annaga puntlandna dadna kaga soo deyman maayo somalilandna lakaga soo deyman maayo koonfur galbeed iyo kismaayona lakaga soo deyman maayo xuquuqda gobolka iyo dadka jooga waxay u degnaayeen oon u oggolayn soomaaliya inay israacdo haddii la keeno marka la yidhi arrintaana dowladda soomaaliya shuqulba kuma laho ayadu maba aynay sheegin maba oga in dadkii laysku diro loosu dheelisiro la yidhahdo waa in ma aqbalayno jinsi soocaas ma aqbalayno mana aqbali doono waxaan leenahay guddiga madaxa bannaan arrintaa dib howgal embarajosi ka dhiib aad iyo aad u mahadsantahay boqor waxaan filayaa muuqaalkaaga hadduu u gaaro ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kale in ay ka jawaabi doonaan maadaama boqorkii uu maanta hadlay aad iyo aad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah oo aad maanta noo hurtay waxaan anaga sharaf noo ah inaan aan ku wanaagsanno haddaan nahay Aaran Production boqor maxaa kale ku darnay waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre aad iyo aad ugu mahadcelinaysa khaas sidii uu u oggolaaday amba uu cod dheer ugu yidhi doorashadu way dhacaysaa waqtigeeda dhacaysaa doorashadu waqtigeeda dhacaysaa sida xukuumaddiisu ay u aqbashay aad iyo aad ugu mahadcelinayna waan soo dhaweynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu